kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal meel kastoo aad inaga maqlaysaan waa subaxa ahada 9 bisha Janaayo sanada 2022 arrimahan barnaamijka saaka idinku haynana waxaa kamid ah duqeyn dhanka cirka oo ka dhacday xero qaxooti oo ku taal waqooyiga Itoobiya oo la soo tabinayo in tobanaan qof ay ku dhinteen kuwa kalena ay ku dhaawacmeen tirada dadka fayraska corona ugu dhintay Britain oo kor u dhaaftay 150,000 oo qof tiradaas oo ah mid ugu badan ee galbeedka Yurub tartanka qaramada Afrika oo maanta ka furmaya caasimadda wadanka Cameroon xilli ay jiraan xayiraado la xiriira fayraska corona haddaba waa sidee garoonka ciyaarahaasi maanta lagu furayo wariyaha BBC-da Maxamed Xaraare ayaa ka waramaya runtii wuxuu u muuqdaa garoon ay ku dadaashay dowladda Cameroon in si qurux badan oo ciyaarta uga dhacdo dhan kale dariiqyada iyo magaalada calaamo ayaa la ruxayaa dadku waa la soo dhaweynayaa darbiyada waxaa lagu xardhay magacyo iyo kalarro kala duwan dadku waxay xiran yihiin fanaanado wadanku wuxuu u muuqdaa inuu galay xaalad ciyaar iyo Turkmenistan oo qorsheynaysa inay xirto albaabkeeda cadaabta barnaamijka ayaad kaga bogan doontaa qodobadaasi kuwa kale oo Soomaalida caalamka ku saabsan ayaad ku maqli doontaan barnaamijkan uu soo saaray Axmed Mursal Xuseen anigoo Cabdi Ibraahim Cagaarna in la socodsiinaya balse marka hore dhageystayaal ku soo dhawaada wararka caalamka iyo Faadimo Cali Bukar mahadsanid Cabdi Fataax waxaa soo baxay sawirro laga soo qaaday xidiga dhanka kubadda tenniska ee Novak Djokovic oo isaga aanan xirnayn afxirka oo ku sugan meel ay dadweynuhu isugu yimaadaan oo ku taala dalka Serbia waana xilliyadii ay qareenadiisu sheegeen in laga helay xanuunka COVID-19 Australia ayaa ka mamnuucday inuu ka qayb galo ciyaaraha Australian Open iyadoo sababta ku sheegtay inuu diiday inuu qaato talaalka qareenadiisa ayaa sheegay inuusan u baahnayn qaadashada talaalka maadaama uu dhowaan ka caafimaaday fayraska corona laba ka tirsan xildhibaanada dimuqraadiga ah ee Mareykanka ayaa walaac ka muujiyay howlaha ganacsi ee shirkadda dhanka online-ka guryaha looga kireysto ee Airbnb ee gobolka Xinjiang ee dalka Shiinaha Jeff Merkley iyo James McGovern ayaa sheegay in guryo badan oo ku jira liiska shirkadaasi Airbnb ee Xinjiang ay ku yaalaan dhul ay leeyihiin militariga kuwaasi Airbnb ayaanan ka jawaabin arrintaasi dadka ku nool xaafado ku yaala waqooyi galbeed Nigeria ayaa sheegay inay ku qasbanaadeen inay aasaan ugu yaraan 200 oo qof oo lagu dilay weerar argoosi ah oo ay soo qaadeen kooxo hubeysan kadib duqeymihii cirka militariga dalkaasi ay ka geysteen keymo ay ku dhuumaalaysanayeen duqeymaha oo laga geystay gobolka Zamfara ayaa waxa ay dhaceen aroornimadii Isniintii la soo dhaafay duqeymo dhanka cirka ah oo lagu qaaday xero qaxooti oo ku taala waqooyiga Itoobiya ayaa waxaa la sheegay inay ku dhinteen in ka badan 50 qof ma jiraan warar madax bannaan oo xaqiijinaya weerarka kooxda TPLF ayaa weerarkaasi ku tilmaantay mid aad looga xumaado magaalooyinka dalka Cameroon ayaa isu diyaarinaya ciyaaraha koobka dalalka Afrika oo bilaabanaya gelinka dambe ee maanta ciyaarta ugu horeysa ayaa waxa ay caasimadda Yaoundé ku dhexmari doontaa dalka martigeliya ciyaarahan ee Cameroon iyo waliba Burkina Faso taageerayaasha ayaa laga doonayaa caddeyn ah inay talaal ka qaateen iyo inaysan xanuunka qabin si ay u galaan garoonka ciyaaraha ugu dambeynna in ka badan 150,000 oo qof ayaa ku dhintay dalka Britain tan iyo intii uu bilowday xanuunka safmarka ah ee coronavirus waa dalkii ugu horeeyay galbeedka Yurub ku yaala tiradaasi badan diiwaan geliya dalalka Yurub guud ahaan marka la eegana Ruushka ayaa la sheegay inuu yahay kan ugu daran ee xanuunkan sida ba'an uu u saameeyay wararka caalamkana waa naga intaa Cabdi Fataax aad baad u mahadsan tahay Faadimo Cali Bukar taasi aad wararka caalamka ee nala socodsiinaysa dhageystayaal u diyaar garooba qabaha kale barnaamijka aan ku bilaabay sida aad warka caalamka ku maqlayseen howlwadeennada gargaarka ee ku sugan wadanka Itoobiya ayaa sheegaya in 56 qof lagu dilay duqeyn dhanka cirka oo ka dhacday xero ay ku nool yihiin dad barakacay oo ku taal waqooyiga wadankaasi Itoobiya gaar ahaan gobolka Tigray ma jirto cid madax bannaan oo xaqiijin karta weerarka ka dhacay dhisme iskuul oo ku yaal xerada Dedebit hase yeeshee sawirada la soo dhigay baraha ay bulshada ku wada xiriiraan ayaa waxay muujinayaan dad rayida oo dhaawaca oo lagu dabiibay isbitaal waxaa halkaas ku jira dagaalka dhulka ee u dhaxeeya ciidamada federaalka iyo falaagada Tigrayga hase yeeshee waxaa weli socda duqeynta dhanka cirka Faadimo Cali Bukar ayaa faafahinta warkaasi isku soo dooday weli stuudiyaha igula sugan Faadimo bari noo waran
cabdifataaxu weerarkaasi waxaa la sheegayaa inay ku dhinteen 56 qof qaar kalena ay ku dhaawacmeen waxaanay ka dhaceen xero qaxooti oo ku taala waqooyiga Itoobiya oo ay ku nool yihiin baa la yiri dad markaas kasoo barakacay colaada gobolka Tigray sida laga soo xigtay shaqaalaha gargaarka ee gobolkaasi ku sugan sida aad sheegtayba muuqaalo la soo dhigay baraha bulshada waxaa laga arki karaa dad la daweynayo kadib duqeymahaasi oo gaar ahaana lagu qaaday iskuul ku yaala magaalada Dhadhabid ee waqooyiga gobolka Tigray ma cadda sababta iyo weliba qaabka loo weeraray iskuulkaasi balse waxaan ognahay in ciidamada dowladda ay mucaaradka kula dagaalamayeen Tigray muddo sanad ah dagaalkaas oo ay ku dhinteen kumanaan qof waata marka Faadumo ay dowladda Itoobiya wax wara arinta duqeynta ma ka soo saartay maya cabdifataaxu horta ma jiraan warar madax bannaan oo xaqiijinaya weerarkaasi sida la sheegay dowladduna kama aysan hadlin laakiin waxaa la ogyahay in dhowr jeer oo hore dowladda Itoobiya ay beenisay in ay bartilmaameedsato dadka rayidka ah dhanka kalena iyadoo isku dhacyada u dhaxeeya ciidamada dowladda Itoobiya iyo weliba isbahaysiga mucaaradka oo ay horkacayaan kuwa Tigreega uu si ku meel gaar ah u istaagay ayaa haddana weli waxaa sii socda duqeymaha cirka lagu beegsanayo goobaha ay markaasi mucaaradku ku sugan yihiin taasoo sababta ayaa la yiri in dhibaato ay kasoo gaarto dadka rayidka ah shaqaale gargaar oo aanan magacooda la shaacinin ayaa cabdifataaxu waxa ay soo bandhigeen sawirada dad dhaawac ah oo isbitaalka jooga oo ay ku jiraan tiro markaasi caruur ah jimcihiina dowladda waxa ay ku dhawaaqday inay sii daysay dhowr siyaasiyiin caan ah oo ay ka mid yihiin hogaamiyayaasha kooxda TPLF ra'iisul wasaare Abiy Ahmed waxa uu sheegay in tallaabadaasi looga gol leeyahay in la gaaro dib u heshiisiin qaran laguna horumariyo midnimada qaran marka cabdifataaxu haddii aan dhegeystayaasha dib u xusuusino dagaalka Tigray waxa uu qarxay bishii November ee sanadkii 2020 kadib markii Abiy uu amray dagaal military oo lagu qaado ciidamada Tigray waxa uu sheegay in sababta uu sidaa u sameeyay ay tahay iyadoo laga jawaabayay weerarka ay ciidamada Tigray ku qaadeen saldhigga military ee ciidamada federaalka ee gobolkaasi xiisadaasina waxa ay ka dambeysay bilooyin oo khilaaf ka dhex taagnaa dowladda Abiy iyo weliba hogaamiyayaasha TPLF dad badan ayaa ku barakacay dagaalka iyadoo qaramada midoobay ay ka digtay in gobolku uu ku jiro xaalad degdeg ah oo bini'aadanimo oo ay ka mid tahay baahi ee dhanka dawooyinka ah waata aad baad mahadsan tahay Faadumo oo kale taasi ahayd faafaynta warkaasina la socodsiinaysay markana sida aad warka caalamka ku maqlayseen in ka badan 150,000 oo qof ayaa waxaa lagu soo waramayaa in wadanka Britain gudihiisa ay ugu dhinteen cudurka COVID-19 ee safmarka tan iyo markii cudurkaasi uu bilowday caalamka uu ka dilaacay wadalkii ugu horeeyay ee ku yaal galbeedka Yurub oo dadka cudurkaasi u dhintay ay ka tiro badan yihiin 150,000 oo qof dalalka Yurubna Ruushka oo kaliya ayaa waxaa dad ka badan kuwa Britain ay cudurkaasi ugu dhinteen Britain waxaa la sheegayaa in 24 saacadood ugu dambeeyay diiwaan gelisay 313 dhimasho waxaana farabadan ku hayaba haatan leeyahay mawjad nooca Omicron ee fayraskaasi corona faafaynta warkana waxaan weydiiyay wariyaha BBC da London Ismaan Cabdi Xasan oo markii hore weydiiyay sida uu xal yahay cabdifataaxu marka aad fiiriso magaalada iyo sida dadka ay u nool yihiin waa magaalooyinka iyo meel walba xaaladdu way iska caadi dadku shaqooyinkooda way tagaan dukaamadii way furan yihiin waa la isdhex socdaa meelihii dadka ay ku caweyn jireen sidii loo tagaa fasaxyadii aan soo dhaafnay December iyo kuwii January dabaaldegii sanadka waxaasoo dhan caadi u socdeen inkastoo ka duwanaayeen kuwii intaanan corona la gelin ka hor oo taxadar badan jiray haddana wax walba sidooda ay u socdaan laakiin dhimashadan iyo dadka u dhimanaya viruska corona iyo noocan hadda u dambeeyay ee Omicron waa sida ay maalin walba idaacadaha warinayaan iyo sida dhaqaatiirta ay noo sheegayaan annagaba waxaan aragnaa in ay weli dhimashadu badan tahay oo dad badan ay u dhimanayaan aysan ahayn mid iska wada istaagtay inkastoo aan soo gudubnay xilligii kulaylaha oo kale ay aad hoos ugu degtay sidii loo bilaabay tallaalkana ay hoos u dhacday haddana kor ayay usoo noqoto weli dhimashadii way badan tahay dad badan ayaa u dhimanaya sida uu horey u sheegay madaxa hay'adda caafimaadka adduunka Omicron si kasta uu xanuun yar yahay haddana waa loo dhimanaa isbitaalna waa loo galaa Ismaano marka maxaa keenay in tirada dadka cudurkan COVID-19 ugu dhimanaya UK ay sidaas u badato horta dhimashadan 150,000 iyo ma aha wax hal mar dhintay waa intii soo socotay dadkii dhintay oo dhan oo la isku daray oo wadartii guud waa marka saas loo fiiriyo waa muddo dheer laakiin haddii hal mar qofka uu maskaxdiisa ku qabto 150,000 dhimatay oo uu qaatay inay hal mar tahay ma aha waa
markay dhimato 100 maray dhimato 50 wixii la isku soo dardaraya ilaa intaan soo gaartay tiradaasna waa wadankan hadda waxa la leeyahay inay ka yaraanaysaa mar walba la qiyaasayo marka waxa walaaca keenaya waxay tahay weli waa la dhimanaa tiradana waa isii kordhaysaa dowladda wax tallaaba oo ay qaaday oo ay ku xakameynayso noocan cusub ee faafaya ee cudurka COVID-19 ilaa hadda tallaabo weyn ma muuqato oo aan ka ahayn sidii talooyinkii caafimaadka dhakhaatiirta ay sheegayeen taas unbay dowladda sii xoojisaa laakiin wax gaara oo ay qaaday ma jirto waxaad moodaa in sidii ay u soo baxday fadeexaddii dowladdan lagu qabsaday oo ahayd inay xaflad qabsadeen xilli dadkii ay ku jiraan xayiraado ay hadda iga khafiifiyeenba oo aad moodoba inaysan xayiraad soo rogayn oo wax walba sida u socdaan ay xaaladooda ku eg tahay un talo ay leeyihiin ganacsida waa inay socdaan wax walba waa inay sidooda u socdaan marka tallaabo muuqato oo in la xayiro dadkii ma la qaadin laakiin waxay un badiyeen talooyinkii dadka guryaha ka shaqayn karana waxaa lagula taliyay inay guryahooda ka shaqeeyaan laakiin kuwa ugu badan oo ah dadka aan guryaha ka shaqayn karin ama ah maqaayadihii dukaamadii iyo meelihii kale lagu caweynaya tagaasidii baabuurtii dadkii waxaasoo dhan bannaankay wada socdaan wax hadda meel u fadhiya ma jiraan taasaana waxay keenaysaa in loo arkaba in tallaabo weyn aan la qaadin ilaa iyo hadda koronaha markuu bilaabanayay xayiraado adag oo culus baa dalalka badan ay soo rogeen oo UK ay ka mid tahay haatanse sida aad ku warramaysidba xaalkuu ka duwan yahay sidii hore maxaa midaan keenay waxaa keenay dadka waa daaleen in la xayiro teeda kale waxaan xayiraad oo guri lagu jiro oo ay dadka bannaanka u soo bixin taasna dadka qaar way dhaliileen waxay yidhahdeen caafimaadka maskaxda ayaa badanaya dad badan ayaa keligood ah oo aan gurihii ku jiri karin marka taasaa waxay keenaysaa in ilaan markii uu cudurka bilowday lama ogeen xaaladda siday ahayd hal maraa go'aan la qaatay oo ah xayiraada lasoo wada rogo guryaha lagu wada jiray laakiin hadda taa waa ka duwan tahay oo dadki weli iyagiyaaba jecelba inay bannaanka u soo baxaan oo taagan cudurka waa jira waa inaan la noolaanaa aan nala nimaanaa si aan ula qabsanno annagoo howlaheennin wadano marka waxa ugu muhiimsan ay tahay waa in nadaafadii lagu dadaalaa waa in dadka ay istallaalaan badanaa inta dadka tallaalan waa la ammaanay waxaa la yidhi qofka xitaa hadduu ku dhaco dhibaatada waa ka yaraanay waa sida dhakhaatiirta ay ku talinayaan marka taasaa waxay keenaysaa noloshii caadiga ahayd inaan la gabin oo noloshii caadigeed ay socoto dhinacii kalena laga taxadaro aysan dhicin sidii hore oo in la wada xaroodo kolley haddii xaaladdu isbeddesho dowladda mar walbaba isbeddelay soo saaraysaa waa laga warsugaa laakiin hadda sida muuqato iyo sida uu waddanka oo dhan ku sugan yahay waa un in la taxadaraa laakiin aan xayiraad guud la gelin sidii hore u dhacdo kale cismaan cabdi xasan wariyaha b b c da london ayuu kaasi ah khadka teleefonka igu warramayey facebookan ayaga qaar kamid a dhegeystayaashan ayaa ra'yigooda halkan kaga soo dhiibtay xamse cabdi oo kasoo qoray magaalada burco waxa uu leeyahay tirada dadka fayraska corona ugu dhintay britain guud ahaan ee dhaafaysa 150,000 qof waxa ay midaasi muujinaysaa in walwalkeeda ay leedahay waxaana muujinaysaa inuu soo laabtay khatarta cudurkaasi fayraska corona isla burcaan sii jooga ee nimcaan jaamac maxamed waxa uu leeyahay tirada dadka cudurka corona virus ugu dhimatay britain ee kor u dhaaftay 150,000 qof runtii waxa ay muujinaysaa in weli cudurkaasi uu farabadan ku hayo britain waxaase dowladda looga baahan yahay sidii ay ula tacaali lahayd halista cudurkaasi galaaftay dadka tirada badan ee halkaasi ku nool BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba. saacaduna haatan waxa ay dul taagan tahay 7:14 daqiiqadood oo gowa waqtiga bariga Afrika markana sidaad warka caalamka ku maqlayseen guud ahaan magaalooyinka wadanka Cameroon ayaa waxa ka soconaya diyaargarowgii ugu dambeeyay ee martigelinta tartanka qaramada Afrika ee kubadda cagta kaas oo maanta ka furmaya dalkaasi xarunta ama xulka wadanka Cameroon ayaa tartankaas martigelinaya ayaa kulanka ugu horeeya ciyaarahaasi lagu furayo maanta waxa uu caasimada Yaoundé kula ciyaaraya xulka wadanka Burkina Faso magaaladaas waxay noo jooga oo toddobaadada soo socdana ciyaarahaasi nooga soo warrami doona wariyaha BBC da Maxamed Xaraare oo aan khadka teleefanka bal ku weydiiyay diyaargarowga iyo weliba ciyaarta maanta dhici doonta cabdi fatax waa mahadsan tahay iminka ayuu magaaladan Yaoundé ee dalka Cameroon waaga sii bariya maanta waa maalintii la sugayay uu bilaaban lahaa koobka qaramada Afrika oo galabta ka bilaabanaya garoonka Olympia Stadium ee caasimada dalkan Cameroon Yaoundé ciyaarta ugu horeysa ee muddada la sugayay maadaama uu koobkan dhowr jeer hore dib u dhac fara badan ku yimid caawa ayay bilaabanayaan ciyaarihii ugu horeeyay ee qaramada Afrika ee muddada la sugayay ee 24 xul qaran oo ka kala yimid daafaha Afrika ayaa isugu imaanaya ciyaarta caawa waxaa furaya Cameroon iyo Burkina Faso oo ciyaari doono marka ay magaaladan ka tahay 5 galabnimo oo u dhiganta 7 Afrikada bari
maxamedow ciyaartooydii waaweyneydna way yimaadeen soo maahan oo premier league iyo spain iyo talyaaniga ka dheelaya afrikaanka ah ciyaartooy fara badan oo ka ciyaarayay ingiriiska spain iyo jarmalka iyo talyaaniga intuba waa wada yimaadeen waxaa weliba la isweydiinayaa inay gebi ahaantooda wada ciyaari doonaan ilaa iminka waxaa la ogyahay ciyaartooyga Aubameyang oo Arsenal ka tirsan in laga helay viruska corona aanu ciyaari doonin xulkiisa sidoo kale warar mardhow na soo gaaray waxay sheegayeen in labada ciyaartooy ee reer Senegal ah ee lagu kala magacaabo Koulibaly iyo Mendy oo isagana ahaa borteeriga koowaad ee xulka Senegal ciyaari lahaa maalinta berri ah inaanay iyaguna ciyaaraynin oo viruska corona laga helay weliba arrinta xiisaha leh waxaa weeyaan cabdifataxo in Mendy golahiisi labaad ee kooxda Senegal isagana uu weli Dakar jiro dalka Senegal uu jiruusan halkan soo gaarin oo la leeyahay berri waxaa ciyaarta Senegal golhayo u noqon doona ninka lagu magacaabo Seny Dieng oo QPR ka tirsan oo ahaa borteeriga saddexaad marka ciyaartooyda way wada imaanayaan laakiin qaar badan ayaa laga helayaa xanuunka inay sidaan weliba xanuunkan ugu dambeeya noocan cusub ee degdegaya ee Omicron laba arrimood baa aad loo hadalhayay maalmihii ka horreeyay maanta tartankan la xiriira waa COVID-19 iyo dhanka ammaanka COVID-19 waan arkaynaaba ciyaartooy baa haatan laga helay xanuunkii sidee marka dowladda dalka Cameroon ay joogtida haatan arrintaa ula tacaalaysaa cabdifataxo dowladdu maalmahan arrintaas ammaanka waa ay ka hadlaysay caawana mar aan telefishinada daawanayo waan arkayda dowladda ka hadlaysa ammaanka dadku waxay u sheegayaan in lagu kalsoonaado ciidamada islamarkaana aanay wax weyn ahayn ammaan weyn oo waxyeelayn doona habsami socodka ciyaaraha inaanu ahayn taas marka dowladdu waxay leedahay inaga xakameynayna oo meel walba u joogna ammaanka anigana mar aan magaalada wareegayay meel u dhow garoonka ciyaaraha ay ka furmi doonaan waan arkayay ciidamo military ah oo qoryo wata oo gaaf wareegaya agagaarka garoonka ciyaarta ka furmi doonta dhanka viruska corona waxa ugu weyn ciyaartan saameyn doona ayuu egyahay aan ku xasuusiyay in dowladdan ay bil ka hor soo rogtay shuruudo viruska corona ku saabsan ay tiri qof walba oo imaanaya garoonka waa inuu qabo tallaalka sidoo kalena waa inuu 24 saac ugu dambeysay iska soo baaray xanuunka oo uu xaqiijin karo ama tusin karo shahaado muujinaysa inaanu cudurka sibin ciyaarta furista oo Burkina Faso iyo Cameroon dhex mari doonta kooxda Burkina Faso ilaa 5 ciyaartooy oo muhiim ah ayaa laga helay viruska corona iyadoo weliba xiriirka kubadda cagta Burkina Faso ay yara diidan yihiin natiijooyinka laga helay ciyaartooydaas oo ay weydiisanayaan xiriirka in dib loo baaro ama ayaga ay si gaar ah u soo baaraan marka viruska corona waa waxa ugu weyn ee la hadalhayo cabdifataxo magaaladan Yaoundé bal ka waran diyaar garowga tartankan haatan aad u joogtid Cameroon diyaar garowga aad ayuu u qurux badnaa laba garoon oo lagu ciyaari doono ciyaarahan qaramada Afrika ayaa ku yaala magaaladan Yaoundé aniga aad joogo garoomo kalena wuxuu ku yaalaan magaalooyin kale sida Douala iyo magaalada Lembe oo iyada naga fog labada garoonba waan tagay garoonka ciyaarta ka furmaysa Lembe Stadium ayaan cabaar joogay wuxuu ku yaalaa meel aad u weyn oo u ballaaran mar dhow ayaa gacanta laga qaaday runtii wuxuu u muuqdaa garoon ay ku dadaashay dowladda Cameroon in si qurux badan oo ciyaarta uga dhacdo dhan kale dariiqyada iyo magaalada calaamo ayaa la ruxayaa dadku waa la soo dhaweynayaa darbiyada waxaa lagu xardhay magacyo iyo kalara kala duwan dadku waxay xiran yihiin fanaanado waddanku wuxuu u muuqdaa inuu galay xaalad ciyaar maxamed xalaale aad ayuu u mahadsan yahay dhanka kale qaar ka mid a dhegeystayaasheena ayaa ra'yigooda oo coda inoo soo duubay السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومختار عمر آدن شوك مقالة هرقيسة أهنا تاقري وينا كوحة ليفربول لنا كلا قارة أفريقيا يعني كنا والله قارة أفريقيا بريتولا وحا كبلا من دونا بري أما صادم وحا كبلا من دونا كوب كقرمضة أفريقيا إسلام مركانا حيسا إي حماسة دي سوسيوين لو تسوي دونا هريال قارة أفريقيا سنة كان وحا كترتم دوما عياري هنا آدي دونك اللوغي قانا سيدا كوا بريمير ليغا كوا كيمانيا لليغا إسبانيا كوا كيمانيا تليانيا sanadkan waxaa isha weyn si weyn loogu haya maxamed saalax iyo riyaad maxaris abaalkii dalalkooda gaarsiin doonaan magacaygu waa jaamac maxamed xirsi waxaan ka soo hadlayaa degmada gaashaamo ee dowlad deegaanka Soomaalida tartanka ciyaaraha qaramada Afrika ee maalinta bariya ka furmay dalka Cameroon runtii aad baan u soo dhaweynayaa waxaan anigu taageero u ahay dalka Ethiopia waxaan rajaynayaa inay koobka loo soo walwaali doono dalka Ethiopia oo Ethiopia noqon doonto dalka sanadka ku guuleysta tartanka qaaradda Afrika maxaa yeelay sababta aan u taageerayaa waxay tahay mar haddii aanay ciyaareen Soomaaliya oo dalkayga koowaad ah waa lama huraan inaan taageero
taageero Ethiopia oo ah dalka labaad. Ethiopia iraade dhanka taariikhda ciyaaraha waxay ku leedahay taariikh mug weyn oo cid kaga horreysa ma jirto inta badana. Waana aad baa idin salaamaya BBC war mahadsantiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waa Shucayb Xuseen Xasan Gusafig dhiibanaya magaalada Boorama haddii aan ka dhibto ra'yigayga iyo sida ila tahay koobka qaramada qaaradda Afrika ee berri toole insha Allah ka bilaabmi doona dalka Cameroon. Anigu waxaan isleeyahay waxaa qaadi karaa koobka waddanka Maxamed Saalax ee Masar ama Riyad Mahrez ama Senegal. Assalaamu calaykum, magacaygu waa Cabdisalaam Katooje, waxaan joogaa magaalada Galdogob ee gobolka Mudug. Koobka qaramada Afrika ee ka furmay dalka Cameroon, anigu waxaan taageerayaa dalka Senegal maadaama uu dalkeeni hooyo uusan meeshan ka muuqan. Dalka Senegalna waxaa la dhihi karaa waa dal kubadda cagta ee qaaradda Afrika magac dheer ku leh. Haatana waxa uu haystaa xidigo u muuqan kuwa la loodin karayo. Waxaa ka mid ah gooltiyeriga Chelsea Mendy iyo weeraryahanka ay ku tashato Liverpool Sadio Mane. Marka guul ayaan u rajeynayaa dalka Senegal. waxaan qaar ka mid ah dhegeystayaasheena Facebook oo ra'yigooda oo cod ay noo soo duubay tartankaasina maanta uu bilaabanayaa ayaa u dayma la'aanina. markanse wararka Soomaalida aynu kusoo laabanay ee xukuumadda deegaanka Soomaalida waddanka Ethiopia ayaa ku amartay maamulada degmooyinka in dhammaan mashaariicdii degmooyinka ee horumarinta hakad la geliyo loona jiheeyo dhanka iyo wax ka qabashada ama ka jawaabidda saameynta abaaraha. Arrintan ayaa imanaysa xilli deegaanada qaar laga soo tabinayo beeyari baahsan oo saameysay dad iyo dunyaba. haddaba Cumar Faruuq Xaaji Warfaa waa wasiir ku-xigeenka madaxtooyada dowlad deegaanka waxa uuna faahfaahinayaa sababta ku dhalisay inay qaataan go'aankaas ay ku hakanayaan mashaariicda horumarineed ee degmooyinka deegaankaasi. khadka taleefanka ayuu ugu warramay waryahayaga Ismaaciil Ibraahim Buurgaab. sidaad ogtahay deegaanka waxaa ka jira abaaro ba'an oo saameeyey 78 degmo. meelo badan oo deegaanka ka mid ah waxaa ka socda biyadhaan. meelaha qaar calafku yaa gabaabsi ah, meelaha qaar cuntada laftirkeeda ayaa dadka ku yar. marka xaalad abaar oo ba'an baa deegaanka si guud uga jirta. xaaladaasi waa xaalad ay dowladdu si guud ula soo socotay daraasaad iyadoo saadaalin ku waday qorshayaal ka yaalayna ay jireen. marka xaaladdu kolba face bay yeelanaysay. face kastana sida ay tahay baa qorshahii ka yaalay macaamilayay. hore waxaad xusuusataa in golaha kabinetku uu bishii November 12 uu 200 milyan u qoondeeyey abaaraha iyo ka jawaabistooda. waxaa kaloo xusuusataa in mashaariicaha heer deegaan horey loo hakiyey kuwooda cusub ee socday si loo eego xaaladda dhaqaale ee waddanka iyo si guud iyo si gaar ahaaneed abaaraha iyo xaaladda nabadgelya waddankana iyo deegaanka loo eego. marka tanina waa face kale oo faysaska un horey isu kamid ah oo waxaa la hakiyey degmooyinka mashaariicihii ay wadeen ee horumarineed een asaasiga ahayn. kuwa asaasigii waa kuwa biyaha, caafimaadka, waxbarashada, waxyaabaha nooca la xidhiidha kuwa sidooda u soconayaan. waxaana laga hakiyey goobaha ama degmooyinka ay abaaruhu saameeyeen ayaa waxaa lagu amray inay ku jiheeyaan waxqabadkooda ka jawaabista abaaraha iyo dardargelinta xaaladda ka jawaabista abaaraha. go-aan taala xidhiidha ayuu ahaa. inta in la eg bay miisaaniyadaasi horumarinta laga hakiyey ay wax ka taraysaa ka jawaabidda abaaraha annagoo og in miisaaniyadda degmooyinka tagto inay inteeda badan mushaar un iska tahay. sanadkiina iminka wuxuu marayaa gabagabo. marka lacago badan muu harsan yihiin wax ma ka tari karaan xaaladda lagu jiro ee iminka hor leh ee jilaalka dhowrka bilood ee soo socda ah? haa, way ka tari kartaa. degmadu waa dowlad sideeda u jirta, miisaaniyad leh. degmooyinka ugu miisaaniyad yar xagga mashaariicahana ilaa 20 milyan bay gaari kartaa. iyo suuragala inay noqoto qaarkoodna way ka badan yihiin. marka iyadoo dhan lama wada isticmaalayo. haddii ay wanaagsan tahay ama ka badan tahay looma isticmaalayo abaaraha. laakiin hadday xataa 2 milyan 3 milyan ka soo goodo oo biyadhaamis iyo calafka xoolaha iyo dadka quudintooda la gaadho, dabcan inayna degmada oo dhan ku wada fillayn baa suuragala. xaaladdu way culus tahay. ka deegaan ahaan wixii tabartana oo dhan baan geysanaynaa. tabarta degmada iyo dowladda oo heer deegaan iyo heer gobol iyo heer degmada marka laisugu wada geeyana wixii farqiga ka soo hadhana waa waxaan noola qaysanaynaa beesha caalamka iyo hay-adaha samafalka oo dhanba. marka intay ka tari kartaa maaha, intay ka tari kartaa adu muhiim maaha, waa intaan tari karnaba. hadday doonta ilaahumay hal nusya ka buuxise nuskaa inaynu geysano waajibaadkana saaranaan dadkana ee dunyadooda sama ka bixinana saaran wey. waa mas-uuliyadna saaran inayna tarayni inay tari karta waa dood kale. wasiir, dhowaan waxaad joojiseen shaqaalayntii maamul magaalooyinka, degmooyinka, gobolada iyo kuliyadaha. haddana waxaad joojiseen mashaariicihii horumarinta ee degmooyinka. ma culays ka badan ama zaa'id ka ah abaaraha oo dhaqaale ahaan ah iyo xukuumadda ay wajahayso?
haysaa waxa xaqiiqa oo jirta in wadanku dagaal galay in xaalad dhaqaale oo daran la soo daristay ka deegaan ahaanna waxyaabaha qaar saameyn toos ah oo ayaynu leeyahay oo taban marka ma dhihi karno xaalad dhaqaale oo sidii awal hore projectionkii lagu socday sanadka bilowgiisii iyadoo inay colaad jirin iyadoo wadanka dhaqaalihiisuuna burburin iyadoo inay abaara jirin baa lagu socon karaa dowladoo dhanna bay qorshayn iyo maaragtay kolba xaalada jirtay loogu wajihi lahaa iyo ula falgalaan marka xaalad gaar anaga nugaa ka deegaan ahaan ma jirto runtii waxaan nahay dowladda ama deegaanka ugu nabadgelyada badan xaaladaha naga iyo dakhliga nagiiso xaruntiisa uu badan yahay weli federaalka laftirkiisa subsidigi laga helayo uu fiican yahay laakiin waxaa xaqiiqa in annagoo rabna inaan abaaro ka jawaabno annagoo aana dadtahay deegaanka dowlo inay deegaanku ay ama dowladdu tahay gudaha ku furan iyo xaaladda nabadgelyo inay iyadu si ilqaan dheeraada ay ka samayso iyadoo xaaladda dhaqaale wadanka uu soo dirsay inay saameynteeda nala imanayso marka saameyntaasi mararka kolba fayska ugu muhiimsan mooyaane faysaska kale ka daran baa la reebi waa tahay kaasi waxa uu ahaa cumar faaruuq xaaji warfaa wasiir ku-xigeenka madaxtooyada dowlad deegaanka oo khadka taleefonka ugu waramayay ismaaciil ibraahim buurgaab oo halkaad nagala socotaana waa b b c waa tahay markana war ka duwan wararka aad qaybaha hore barnaamijka kusoo maqasheen waa madaxweynaha turkmanistan oo saraakiisha dalkiisa amray in ay soo dejiyaan xalkii ay ku damin lahaayeen dab holcayay muddo 10 sanadooda oo lagu naanaysaba albaabka cadaabta halkaas oo dad badan ay dalxiis u tagaan faafaynta warkan waxaa soo akhriyay axmed marshal xuseen oo inoo warramay axmed cabdi fataax madaxweynaha ayaa waxa uu amar ku bixiyey in la debiyo dabkaas holcaya oo loo yaqaan albaabka cadaabta ee dalkaas halkaas oo ah god weyn oo dab uu ka holcayay muddo 10 sannadood ah waana goob ay markaasi dadka dalxiisayaasha ay tagaan si ay usoo daawadaan bal halaaga halkaas ka dhacaya madaxweynaha dalkaas bedri mukhamedov ayaa doonaya in dabka la damiyo si meesha looga saaro waxyaabaha dhibta ku ah caafimaadka iyo deegaanka xog badan lagama hayo cabdifataaxow goobtaas oo lagu magacaabo darfaza shidaalka lagu qodi jiray balse markii dambe duntay ku taal lama deegaanka karakum dad badan ayaa rumaysan cabdifataax in goobtaasi ay samaysantay kadib markii uu khaldamay howlgal shidaal oo midowgii Soviyetka uu halkaasi ka qodayay sanadkii 1971 hase yeeshee dhulmareenka reer Canada George Corononis ayaa waxa uu markaasi 2013 dirsay godkaas waxa uu ogaaday in cidna aanay dhab ahaantii ogeyn sida uu godkaasi ku bilowday sida ay sheegeen juqraafiyahanadana Turkmanistan godkan weyn ayaa samaysmay 1960meeyadii hase yeeshee uu dabku halka ka bilowday 1980meeyadii cabdifatax waa tahay aad baad u mahadsan tahay axmed mursal xuseen ayuu kaasi ahaa oo faafahinta warkaasina la socodsiinaya facebook ama dharka internetka ayaad ka eegi kartaan faafahintaasi dheer balse ciyaarihii haddaan eegnana maanta waxaa indhaha lagu wadahayaa waddanka Cameroon halkaas oo uu ka furmayo tartanka qaramada Afrika ee kubadda cagta 24 kooxood ayaa halkaa isugu tagay ciyaarta ugu horreysana waxay xamri doontaa Cameroon iyo Burkina Faso halka Ethiopia iyo Cape Verdena ay ciyaarta dambe ee xigta ay labaad ay noqon doonto inta ayaan kusoo gabagabeynaynaa idaacaddii subaxnimo ee sidaas iyo nabadgelyo